isbedel ayaa toddobaadkan horraantiisii ka bilowday ka gadaal markii ay shaaca ka qaadeen inay magaaladaasi isaga baxeen xoogagga shabaabka. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii dagaal xoog leh oo muddo aad u fara badan socday uu dhex maray xoogagga shabaabka iyo ciidamada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM. xoogagga shabaabku waxa ay lumiyeen awoodii dagaal ee degmooyinka ka tirsan magaalada Muqdisho, waxaana dib looga riixay fariisimihii ay ka soo kulaalayeen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, halkaasi oo ay kaabiga ku hayeen isla markaasina muddo sanad ah laga hor joogay. Degmooyinka Hodan, Wadaag, Wardigle iyo Boondheere ayaa ka baxay gacanta al-shabaabka bilihii la soo dhaafay. waxaase cududii ugu weyneed ee dagaal ay dhex martay toddobaadkan raantiisii, iyagoo xoogagga shabaabkuna ay sheegeen inay dagaalkaasi uga baxeen xeelad dagaal, taasi oo u muuqanaysa in cudud dagaal oo aad u weyn la saaray. dagaaladani ayaa ah kuwa si weyn u naafiyey dadka shacabka iyo weliba guud ahaan magaalada Muqdisho. ciidamada AMISOM ayaa dagaalkaasi u adeegsaday noocyada kala duwan ee dababaadka dagaalka, gaar ahaan taangiyada, iyagoo markaasina duqeymo lixaad u geystay goobaha ay ku tuhmayeen ay ku sugan yihiin dagaalyahanka al-shabaabka, iyo weliba goobo rayid ah oo markaasi ay madaafiicdu si toos ah loogu bartilmaamaystay. waxaana jirtay madaafiic shiish wareertay iyo kuwo kale oo mari habaabay oo ka dhacaysay taangiyada AMISOM oo ku dhacay magaalada Muqdisho qaybo fara badan oo ka tirsan. dagaaladani ayaa ahaa kuwa aad u xoog badan oo labada dhinac ee isdagaalaya ee mucaaradka iyo dowladda ku meel gaarka oo garabsanaysa AMISOM u geystay jug aad u weyn. toddobaadkani ayaa haddaba xoogagga shabaabku waxaa gacantooda ka baxay fariisimadii ugu muhiimsanaa ee magaalada Muqdisho, iyagoo markaasna ka baxay fariisimadii ay ku lahaayeen degmooyinka Wardigley iyo Aqshid, iyadoo markaasina jidka warshadaha laga qabsaday. laakiin afayeenka xarakada al-shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa ku macaaniyay dagaalkaasi inuu yahay mid markaasi ay xeelad dagaal uga baxeen goobaha laga qabsaday, waxaana goobahaasi ugu muhiimsan xaruntii hore ee wasaaradda gaashaandhigga, jidka warshadaha iyo xarunta xisbiga sarihii Xamar Bile, jidka warshadaha Eveco, garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho iyo weliba waqooyiga magaalada Muqdisho. degmada Kaaran ayaa ciidamada dowladda ku meel gaarka u gacan gashay, waxaana la soo sheegay in xoogagga shabaab inay haatan ku sugan yihiin qaybo ka tirsan degmada Huriwa iyo suuqa xoolaha, halkaasi oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dagaalna ay kala hor imaanayaan ciidamada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. al-shabaabku waxaa la soo sheegaya inay fariisimo xoog leh ka samaysteen duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhinaca xeega ceelasha biyaha kilomitir 13 Afgooye, Lafoole iyo Balcad, halkaasi oo ay si weyn isugu hubeenayaan. degmada Daynile ayaa sidaasi lamid laga soo sheegaya in xoogagga shabaabku ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo military oo baaxad weyn, waxaana wararku intaas ku darayaan in dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay markaasi u aragtay dagaalkaasi inuu yahay mid ay ku jibaysay al-shabaabka. laakiin shabaabku waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi aanu ahayn mid iyaga lagu jibayay, balse ay xeelad dagaal la damacsan yihiin dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. dirir iyo xiisado colaadeed iyo rasaas goos iyo madaafiic la isku weydaarsanayo qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa weli jirta. degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley oo ka tirsan galbeedka magaalada Muqdisho ayaa laga soo sheegayaa in rasaas iyo duqeymo halkaasi ay ka jirto, iyadoo ciidamada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ku faafayaan qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhinaca markaasi bari, halkaasi oo la soo sheegayo inay si buuxda gacanta ugu dhigeen waqooyiga magaalada Muqdisho. laakiin su'aasha la isweydiinaya waxay tahay xoogagga shabaabku ma ku sii adkaysan doonaan dagaalka ay ka wadaan qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho, mise sidaasi ayay ugu sii dhamaanaysaa.
saraakiil ka tirsan dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya iyo xildhibaano ayaa nimankii halkaa joogi jiray oo ka shaqayn jiray waxyaaba been abuurka oo ilmaha qalbi jiray markii ay ilmuhu ay la qaldaayeen markii ay dhamaadeen ay waxna dhinteen waxna dhaawacmeen nimankii aqligoodu shaqeeyay hadda waxay wadaan inay been yihiin ay ogaaday waa isaga huleeleen hadda iidan wax dagaal oo aysan halkan ka dhicin isaga huleeleen waana garan kartiin inay been sheegayeen waxaad ka dareemaysiin iyadoon xabadu dhicin wax dagaal oo foolka iidoon dhicin inay iska huleeleen saasay aad u garan kartiin inay been sheegi jireen marka waxaan u sheegaynaa marka dadka ku nool degmada dawladda ciidamada dawladda federaalka kumeel gaarka inay shacabka si wanaagsan ula dhaqmaan dadka shacabka ah oo degan halkaana inay hadda dawladooda ay soo dhaweeyaan si oo nidaam ula shaqeeyaan maamulkii degmadana waa u imaan doonaa ha noqdo taliye saldhigga ha noqdo gudoomiyada degmada waqti dhawayo u imaan doonaa dad aad u fara badan oo reer Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay gaareen guryahooda kuwaasi oo muddo sanooyin kadib tagay guryahooda arrintaasi oo markaas dadkuna ay si weyn u soo dhaweeyeen waxaana la sugayaa bal toddobaadyada soo socda sida xaaladda magaalada Muqdisho isku bedesho gaar ahaan dirirta colaadaha iyo weliba deegaanka madaaficida dhimashada dadka rayidka ah dagaaladani muddooyinka 3 sano ugu dambeeyay ka aloosana magaalada Muqdisho dhibaatada ugu weyn waxay ka soo gaartay dadka rayidka oo madaafiic aan loo aabayelin la isaga duqeeyay suuqa bakaaraha ayaa isagu ka mid ahaa meelaha bartilmaameedka oo ahaa duqeymaha ay geysanayeen ciidamada dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waxaana taangeeda ciidamada AMISOM iyo waliba hubka ladka diyaaradaha si toos ah loogu garaaci jiray qaybo ka tirsan suuqa bakaaraha haatan suuqa bakaaraha xaaladiisu ay degan tahay ciidamada dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya ayaa loo wareegay ammaanka goobahaasi waxaana la soo sheegayaa in haatan dhaqaaqa ganacsiga uu noqon karo mid markaasi bilaaban kara iyadoo dawladuna ay sheegtay in ay si weyn isugu hawlayso xaqiijinta ammaanka ganacsiga ee suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho.